السلام الله عليكم. halka aad naga dheehanaysaan nagala socotaan waa journalistka kala caynta show yaati media fadlan si share garay akhbaartan waxaan ku hormarina aqoonaheenna maanta ay bishu tahay labada bisha March 2022 maalinimo Arbaca ee gelinkii dambe maaragta waxaan ku soo qaadanaynaa aqoonaheenna maalinlaha qodobka koowaad aanu ka dhigano guddigii uu magacaabay ninka la yiraahdo Roble Bahane ama Roble Basto baastada noo soo badiyay ninkii lahaa ra'iisul wasaaraha ku magacaawna ayaa guddi u magacaabay saad ogtihiinba oo halkaan aad maaragtaan in kugu soo gudbinayba habeena ka hor guddiga wuxuu ka kooban yahay 7 xubnood 5 kamid ah ama 3 kamidaba waxay ka shaqeeyaan oo shaqaale ka yihiin xafiiskiisa wuxuu gudoomiye uga dhigay ninka la yiraahdo dhigay oo ah maaragtay ninkii 2016 madaxda ka ahaa doorashadii boobka ahayd damujiid ay boobeen iyo maaragtay maamul goboleedyada sida hadda loo boobayaba ayuu madax uga dhigay asagoo ninkaas oo ugu magacaaban inuu leeyahay la taliyaha dhanka doorashada ee Roble Bahane guddigii la magacaabay ayaa maaragtaa fajacbo waa mid ka dambeeyay meeshii loo magacaabaya waxay ahayd in maaragtaa deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ay Garbaharey ku astaysan inay soo indhindhayaan tala ka soo bixiyaan xaqiiqooyin maaragtaa sugan ka keenaan meesha halka ay aadi lahayeen waxay u duuleen magaalada Kismaayo Axmedoobe dhankiisa yaadeen dabcan waa riwaayad isku xiran waana waxa kaliya oo dib u dhigi kara Garbaharey doorashada dalka haddii aan dabcan hadaan maaragtaa waad ogtihiinoo 16 kursi ayaa taala Garbaharey 16 kaas kursi gadana dabcan waxaa laga faramaroojiyay oo laga xoreeyay Axmedoobe iyo Kenyaatiga iyo daba socdayba halkaas oo maanta xorriyad ugu nool yihiin maaragtaa dad la guuroon yahay ayaa waxaa dhacday in 16 kaas kursi uu hunguri ka soo galo dabcan maaragtaa dad la guuroon yahay danni maadaama Axmedoobe uu maaragtaa uu yahay shaqaalaha maaragtaa dawladda ama madaxa ololaha ee siciidan uu yahay yaana warkii dabcan ku sii daahin halkaas qodobka ah Garbaharey in maaragtaa dawladda ayaa loo diray dhigay meesha Garbaharey uu jiyeen ilaa dadkaas la soo tashan lahaayeen ayay maaragtaa waxay u duuleen ninka Kismaayona dabcan way isku xiran tahay riwaayada noocaas ah halka inay tagaan waxaan maaragtaa Garbaharey u duulaan intii soo laabtay halka yimaadaan dabcan haddana waxa laga yaabaa inay Garbaharey u duulaan asahaatee waxaan rajaynayaa sida aan xogaha ku helayaba in Garbaharey aysan u duulin uusan tagin oo dadka deegaanka maamulka ay maaragtaa afcad ay ku sheegaan inaysan Garbaharey ka soo digi karin guddiga ugu dambeeyay 7 xubnood ee ra'iisul wasaare Bahane ninka la yiraahdo uu maaragtaa uu soo magacaabay waxaan ognahay maaragtaa wasiirada arrimaha gudaha ee maamul goboleedyada sida midka Axmedoobe ugu magacaaban arrimaha gudaha kan Koonfur Galbeed kan Hirshabeelle kan Puntland kan maaragtaa ninka la yiraahdo Galmudug inay maaragtaa July sanadkii hore ay xaqiiqooyin ka soo tabiyeen halka ay dadka deegaanka dhex fariisteen xaqiiqooyinka dhabtaan ay soo wariyeen oo xafiiska ra'iisul wasaaraha ay farta ka soo saareen nuqul maaragtaa ka kooban 9 maaragtaa bog oo maaragtaa dad la kuroon ay uga sheekeynayaan xaaladaha halka ka jira in doorasho lagu qaban karo in nidaamka suurtagal yahay in wax walba xataa haykalkii nidaamka la mar lahay soo sheegan wax ciidan maaragtaa booliis oo amisom la geeyo guddi doorashada uu Axmedoobe uu soo magacaabo halka ay ka shaqeeyaan loo madax banaaneeyo intaaba wixii maaragtaa la isku waayay ahaayeen asahaatee dabcan ninkan waa nin ma aha qof caadi ah maahan maadaama farmaajo uu ninkan keenay uu maaragtaa waxyaalaha khiyaanada qaran oo farmaajo dalkan ka gala uu yahay inuu ra'iisul wasaare Bahane uu dalkan uga dhigay madax maaragtaa qodobka halkaas ayadana maaragtaa dad la kuroyay nimanka dadka gada madaxda ka ayaa diidi doona dabcan sida ay cad oo maaragtaa xogaha ay tabinayaan haddii la kuroon yahay waxa dhici doonta marka in maaragtaa doorashadaas haddii la kuroon yahay illa laga qabto isan dalkan doorasho ka dhicin waa sida dhabtaha ummadda Soomaaliyeed sababtoo ah waxaan qabaala iyo 4.5 ayaa lagu qaybsaday suurtagal ma ahan in doorashada dalka ay dhacdo qabiil xildhibaanadiisa aysan joogin halkan maaragtaa mid iyo laba waa la gartay oo farsamo qabiilka u dhaxaysa maaragtaa dib ugu dhaca laakiin in qabiil gaar ah target laga dhigto oo la yiraahdo maaragtaa baarlamaanka ma soo galeysaan oo doorashada kadib ay imaanaysaan
waa waxa kaliya oo maaragtaa aan qabiilna uusan ogolaan doonin doorashana ma dhici doonto dalkan kama dhici doonto taasuna waa xaqiiq cid walba waa og tahay sababtoo ah xamar ayay ka dhici lahayd doorashada inta farmaajo joogana suurtagal maaha in doorasho teendhada iyo afisyooni lagu qabto ilaa iyo 16 kursi la soo daarto ama meel la saaro haddii rabto sanad iyo labo kale ha qaadato haddii rabto dabcan waa sidaa waxaan kaloo ayadana aan sheegayna haddii waa lagu run yahay maaragtaa ninka la yidhaahdo Dani iyo Maxamuud Diyaano inay kulmeen waxba maaragtaa kulankoodii ka soo naas cadaan waayeen lagu kala tegay Diyaano Maxamuud Diyaano runta u sheegay yiraahdaa nagu soo duulay shalay makti dhibaatada geysata bixi kuraasana halkan kuma boobi kartid waxyaalahaas ayaan maaragtaa tagtaaga ayuu ku soo dhamaaday Siciidani oo iska dhigaya maaragtaa nin qabow oo jilacsan oo maadaama ay kula soo taliyeen maaragtaa Aranjan ay yiraahdeen isdaji markaan maadaama shalay anagu aan ku kicinay iyaga haddana dajiyo yiri halka maaragtaa hadii la ku rooyo suurtagal maaha inaad dagaal ah wixii ku dhamayso akhyaaray kilibkeena intaan ku koobaynaa fadlan sii share garay akhbaartan